dowladda hoose ee degmada Bosaso ayaa olole nadaafadeed ka sameysay siilada xoolaha ee magaalada Bosaso kadib cabasho uga timid ganacsatada xoolaha iyo dadka xaafada degan. waaxda arrimaha bulshada ee dowladda hoose ee degmada Bosaso oo ka duuleysa baahida nadaafadeed ayaa ka jawaabtay cabashada waxaana halkaasi laga sameeyay olole nadaafadeed. ganacsatada iyo bulshada xaafada ayaa soo dhaweeyay in dowladda hoose ee degmada Bosaso ka jawaabto baahidooda dhanka nadaafada. fiican oo maanta naloo ka qaaday digada oo hagar la'aanta oo quruxda badan oo biyihiina loo soo galiyay waxyaalaha kale oo naga dhiman waxaan rajaynaynaa si dhaqsale in loo ku dhameystiro aad ilaahay baa mahadlay aad baan ugu mahadcelinayaa tiimka dowladda hoose iyo dhammaan duqa iyo agaasimayaasha arrimaha bulshada horta waxaan ku mahadcelinaynaa ilaahay dartiis baan gudoomiyaan ugu mahadcelinaynaa biyaha aanu maanta ka haqabeelay oo iyagu albaabka naga jira iridda nooga soo galiyay awalna awood waayeen gudoomiyaashu gaadiid noocaas oo waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay gaadiidka kaaya saaka isugu kaaya qoofalan oo cagafta iyo iska rogooyinka iyo shaqaalaha waxa weeye waa mid aanu boqolkiiba boqol farxadeed aad si wanaagsan oo xalada suuqa xoolaha baan nahay maanta iyo ilaa maalintii la sameeyay inta u dhaxaysa wali cagaf nooma soo gelin waligeed baan nooma soo gelin horena nooma soo gelin dibna nooma soo gelin gudoomiya waad mahadsan tahay waxaan ku rajaynaynaa adduunyada nin waliba maalin buu yimaadaa ninna magac buu kala tagaa ninna maamustar buu kala tagaa kii magac kala tagay allah ka dhigo ma ahan siilada oo kaliya meelaha u baahan in lagu sameeyo olole nadaafadeed balse sidii hore u baahiyay telefishinka Sahal Cable TV waxaa jira goobo xaafadaha gudahooda ah iyo qaar ka mid ah shaariicada magaalada Bosaso maadaama lagu jiro xilliga xagaaga ah oo ay saalan tahay in shaariicada dabaysho ay keento qashin badan iyadoo dhanka kale Bosaso isu diyaarinayso martigelinta doorashada xildhibaanada aqalka hoose ee dowladda federaalka Soomaaliya isla markaasna loo baahan yahay magaalo qurxoon. Bashiir Faarax Saciid, telefishinka Sahal Cable TV, Bosaso.